عليكم إذا لهانتين بخيارتها ودنا حديدا إيميل كاستي ودونida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqiidada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaada dhigi doona diyaarada helicopter oo waday saanada military ayaa ku dhacday xeebaha Xarodheere taasi oo ay isku gadaameen kooxda al-shabaab iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arintaasi walaac ka muujisay barnaamijkeena ayay qayb ka noqon doontaa dalalka soo dhiibay iyo waliba ninka darawalka ka hayo xogta oo dhameystiran ayaan daawadayaal idinla wadaagi doonaa hadduu Rabbi idmo dhanka kale odayaal ku shiray magaalada Muqdisho Salaadiin iyo waliba ganacsato ayaa taageero u muujiyay beelaha Faqishin iyo dhulbahante ee dhawaan ku shiray magaalada Laascaanood kuwaasi oo bayaan ka soo saaray in ay ayahooda ay ka talin doonaan oo aysan u daba fadhiisan doonin maamulada geesaha ka xiga waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa hadduu Rabbi idmo darawalla ayaa isu dhiibay kooxda al-shabaab kuwaasi oo darawalla ka ah maamulka Jubbaland xilli kooxda al-shabaab la sheegayo in ay awoodoodii wiiqantay oo guud ahaan laga soo afjaray bartamaha iyo waliba koonfurta Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaada dhigi doona barnaamijka waxay la qaada dhigi doona saaxiibkay Goono inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika iyo koonfurta Gooniyo hadii aan ku horeyno diyaaradda ku dhacday Xarodheere la sheegay kooxda al-shabaab inay saanad military culus u siday bal arintaasi ku socdo horta farqadu waa mahadsan tahay dadka wadamada reer galbeedka iyo khaliijka inta badan waxay sameeyaan siyaasad qaloocan taasoo ay mar walba ku hagardaameynayaan jiritaanka Soomaaliya waxayna isku dayeen barihii la soo dhaafay in dowladda Soomaaliya ay ka dhaadhiciyaan in wada hadal la gasho al-shabaab marka dowladdu waa kaga saadeegtay taas darteed waxay marka shabaabka ku fikireen nimanka ajaanibta ah in shabaabka hub loo dejiyo marka diyaarad helicopter oo la sheegay in Filibiin inuu waday waxay ku dhacday xeebaha Xarodheere meelaha u dhow markaas oo dhul hood ah ay diyaaradda ku geed ku dul dhacday waxaana saarnaa ninkiina waxba ma gaar marka waa wax iska siyaasad ah waxaan loogu talagalay hubkaasi inay qaataan shabaabka markaas hubka gacanta ku dhigaana saas ay xaaladda ku dhawaad marka shabaabka hubkii way la wareegeen ninkiina way wadeen oo ayaga watay marka wararku waxay sheegayaan in ninkaas uu dhashay wadanka Filibiin loona maleynayo diyaaradahan inay soo direen wadamada khaliijka iyo reer galbeedka taasoo mar walba isku dayo inay hagardaameeyaan dowladnimada Soomaaliya waxaa loogu tartamayaa shidaalkeeda iyo macdanteeda ayaa mar walba lagu dagaalamaya iyo kalluunka ka buuxo taasoo marka dowlad walba ay rabto inay maamulato wadamo fara badan oo Yurub iyo Mareykan iyo maxaa la yiraahdaa ishaga khaliijka carabta intooda badanba dowlad walba ay rabto in ayada maamulato taas ayaa marka tartanka ka dhaxeeya ayaa wuxuu yahay in Soomaaliya markay madax soo qaadaba ee dowladda Mareykanka xiriir la yeelato dowladaha kale ay hagardaameynayaan ama Qatar ama wadamo kale xiriir la yeelanaysa dowladaha kale marka taas oo hagardaameyn marka dhibaatadan waxa mar walba keenaya waa taas waxayna diidan yihiin in Soomaaliya cageeda isku taagto horumarna ay gaarto marka shabaabka hubkan waa hub loo dejiyay uguna tala galeen reer galbeedka iyo wadamada carabtana loo soo marsiyaa inta badan madaxweyne Xasan Maxamed Mardhow wuxuu ka dhawaajiyay in dadka xalana ku sugan ay shabaabka la shaqeeyaan oo mar walbana xataa ay sheeg loo maleynayo inay toos u gaarsiiyaan waxa xataa dhici karto in xalana ka duushay diyaaradda helicopterka maadaama dowladda federaalka Soomaaliya xalana wax ka socda aysan la soconin oo mar walba ay halkaasi Soomaaliya ajaanib fara badan ay halkaas iska maamushaan waxay rabaan ka sameystaan shabaabna xiriir toos ay leeyihiin oo madaxweyne Xasan Maxamed afkiis ka cadeeyay oo si bayaan oo aan qarsoodi ahayn uga hadlay marka mar walba Soomaaliya waxa ku duugan in wadamo reer galbeed ah oo hay'adaha xalana ku sugan ay kamid yihiin iyo wadamo kale dad kale safiiro kale oo ayagana dibadaha ay wadamada kale ka yimid ayaa waxay isku dayayaan in shabaabka kor loo soo qaado maadaama ay wiiqantay dowladda Qatar ayaa lagu sheegayaa inay aad u bushkareynayso in dowladda Soomaaliya iyo shabaab ay wada hadal galaan si xaaladda intan looga bedelo iyadoo danaynayso marka waxay isku dayday in mar walba wada hadal gal markay wada hadalka laga diidayna waxay go'aan ku gaartay in shabaabka hub ay siiso taasoo hadda la sheegay diyaaradda meesha ku dhacday xataa inuu caalamka Qatar oo hoos uga dhagan yahay hub fara badan oo saarad military iyo bombooyinka iyo minooyinka wax lagu qarxiyana ay saaran yihiin marka fargadu xaaladda Soomaaliya waa halis waana loo tashtay xeebaheedana wax control ay malahan hawadeedana wax control ay malaha marka dhibaatada wax keenay waa taas fargadu waan ogaan doonaa diyaaraddaas iyo wararkeeda wixii ku soo kordho insha Allah wararkeena dambe ayaan ku faahfaahin doonaa waxaa jiray diyaarado hadda ka hor ku dhacay duleedka degmada Afgooye iyo waliba Ballidogle oo lacag fara badan oo dollar oo kaasha waday iyo qaar hub saanad military wadayba marka arintan soo ontii la mid ma
hadda ka hor diyaarada ayaa ku dhacay buulamareer iyo janaale meel u dhexeyso taasoo la sheegaya in laba nin oo faransiis ay wadeen diyaaradaasi hubka iyo lacagtana ay saarnaayeen. waa sida u sheegta waa sax, waxaana saarnaay lacag iyo hub oo lacag dollar oo fara badan saareed iyo hubtaasna shabaabka ayaa la wareegeen, labada nin ayaga gacanta ku dhigeen. marka hadda sidii oo kaleeto waaye, waana qorsho mar walba reer galbeedka iyo wadamada carabtu ay Soomaaliya u degaan. diyaaradda ayaa meedaha geedaha lagu dhex ridayaa, markii lagu dhex ridana hadhow waxaa hubkii wixii sida shabaabka qaadanayo, shabaabkuna arrintaas way la socdaan. waxaana hormuudka ah inta badan 90% dowladda Qatar oo saaxiib dhow leh shabaabka, ayaduna ka mid ah aasaasiyaasha shabaabka. mar walba waxay isku dayi jirtay inay wada hadal geliso. maxaa Cabdullaahi Farmaajo dhowr mar la isku dayay in shabaab wada hadal la geliyo, laakiin asagu uu ka goos adeegay, wuxuuna sheegay haddii shabaab wada hadal lala galo inay hadhow ku milmi doonaan dowladnimada Soomaaliya, hadhowna ay dhibaateyn doonto qarannimada Soomaaliya. mar walba waa lagu cadaadin jiray maxaa Cabdullaahi Farmaajo. hadda naftigeeda dowladda Xasan Maxamuud wada hadal inay la gelisay rabtay nimanka la yiraahdo shabaab, wayna diiday. marka dowladda Qatar oo aad u curyaaminayso ayaa hormuud u ah, iyo dowladda Faransiiska, wadamo kale oo reer galbeed oo fara badan ayaa jiro ayagana dhibaato ku hayo Soomaaliya, kuwaasoo ayaga mar walba hagardaamiyo diyaarado iyo hubna usoo diray shabaabka si mar walba ay ugu talagaleen inay meel ku ridaan. markay diyaaradda meel ku ridaan hadhow ragga lasoo qabto doomo iyo waxay kale inta la saaro shabaabku ay diraan hubkooda iyo lacagtoodana saas ay ku qaataan. marka waxaan waa qorshe dheer oo isku daba xiriiro in Soomaaliya dadka madaxda ka noqonaya dad xun ma aha, laakiin 200 iyo 250 dowladood oo ajaanib ah oo gaalo ah oo qaarkood carab ah oo muslimiin kula sheeganaya oo dhibaato wado oo mid walba dan gooni leeyahay ayaa waxaa laga rabaa inuu maamulo madaxweynahaas. marka madaxda Soomaaliyeed mar walba waxaa lagu eedeeyaa inay xun yihiin, inay wadan khiyaaneen, inay saan yeeleen, inay dhibaateen. taasi ma aha micnaheeda in madaxda Soomaaliyeed ay xun tahay, laakiin waxaa aad u dhibaateeyo dad in 50 dowladood oo wajiyo kala duwan leh ayaa dowladahaas lugaha ku dhagay. marka waxa Soomaaliya mar walba curyaamin oo waxaas tanna waxay ka mid tahay tiyo kale fargodow. ilaahay Soomaaliya waji wanaagsan u yeelo, gaaladan iyo wadamadan carabta oo dhibaatada ku haynaha naga qabto. aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyow. dhanka kale waxaa la sheegayaa in darawallo ay isu dhiibeen kooxda al-shabaab ku sugnaa magaalada Kismaayo, kuwaasi oo maamulka Jubbaland darawal ka ahaa. dhanka kale waxay tageen baa la sheegayaa maxaan ku dhahay magaalada Jilib. tirada ma la sheegay horta? faragooda horta ninka hadda hal nin waaye. horey nin ayaa isku soo dhiibay oo shabaabka isku dhiibay oo darawalkii Cabdiraxmaan Mursal ninkii la dhihi jiray baarlamaanka hore gudoomiyaha ka ahaa, darawalkiisa wato hore isku dhiibay. ninkan waa ninkii labaad oo darawal oo isdhiibo, laakiin waxay ku kala duwan yihiin labada nin. ninkii hore waxba baawur lama fakanin, kaligiis ayuu shabaab u guuray oo shabaab ku biiray. ninkan laakiin wuxuu la goostay gaari haartoob ah oo baawarta laangaruusalada loo yaqaano oo aadka macnaha dhiiqada iyo meelaha geedaha aan celin oo guduudka aysan celin oo baawarta adag ah oo four wheelka ah oo haartoobka Soomaalida u taqaano. gaarigaas ayuu la goostay, wuxuuna u shaqeyn jiray oo gaariga u waday nin lagu magacaabo Mustafa Xaaji oo ka ah wasiir ku-xigeenka biyaha iyo tamarta Jubbaland. ninkaas ayaa iska lahaa gaarigaas oo lagu macnaha dowladda Jubbaland ayuuna ka tirsanaa. halkaas ayuuna ninkan ku goostay shabaab ayuuna isku dhiibay, wuxuuna tagay degmada Jilib. waana markii wax lala yaabo ay noqotay shabaab oo sii dhamaanayo in maanta ay ku biiraan darawaladii Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin sababta ay ku ogaan waayeen weli ninkii kaligiis dhuumanayo waa gooniba lama ogaan karee. nin gaarigii hartoob wato oo maanta cabsi lahayn oo dhanka ula jeestay Jilib Kismaayona ka baxay see lagu ogaan waayo. laakiin waa waxyaabo lala yaabo ayay kamid tahay in hadda shabaabkii oo dhul gabalkooda sii dhacayo in nimankaas darawaliinta ay mar walba u goostaan. shabaabku mar walba waxay sameeyaan waxay u balan qaadaan lacag iyo dhaqaale inay siin doonaan hadduu gaari la soo goosto. bal hadalkayga u fiirso, ninkaas hadda gaariga la goostay, gaariga oo la goosto lacag badan oo qaali ayuu ku fadhiyaa oo Jubbaland xataa lacag ayadoo ay leedahay kamaysa bixin hay-ado ayaa siiyey, ma fahanti. marka gaarigaas waxaa laleeyahay gaarigaas noo soo qaad, lacag waxaan ku siinaynaa badan oo $50,000 ama $60,000 loo ballan qaadaya. ninkan markii uu meesha tago wax lacagoo la siinayo ma laha, shabaabka u gacan galaya, gaarigana shabaabka la wareegayo. asagana hadduu qaylo bilaabo ama karif laga dareemo madaxa loo dheereynaa, lacag la siin doono ma jirto. dadka shabaabka ku biirayo mar walba waa fashilan yihiin, meel cidla ayay taagan yihiin. haddaa nafsadaada cabsi ugu biirtay adiga ku tala Jubbaland dhex joogtay wasiir ku-xigeenaad u shaqeynaysay, mushaar qaadanaysay, gaarigiyaa la carartay, shabaaba u geysay, waxa ka faa'iido ma laha. shabaab waa lasoo afjari doonaa dhowrka bilood soo socda ama sanadka soo socdo. shabaab gabi ahaanba waa lasoo afjari doonaa. marka hadhow meesha adiga ku noolaan lahayd haddii shabaabka ku dhaafanaysa ku bireen meesha ku noolaan lahayd laga rabaa. wax faa'iido oo shabaab laga helayo ku biritaankooda saacadan wax ka dambeeya ma jiraan. shabaabka ayaga caldheer hadda xalay kasoo calacalaya magaalada Ceelbur oo ka codsanaya madaxweyne Qorqor inuu isku dhiibo oo weliba galmudug ahaan loo qaabilo asaga iyo ciidamo oo wato 500 oo nin ah oo hadda codsanayo weliba wuxuu u ballan qaaday leeyahay ninkii la yiraahdo Qorqor $3 milyan inuu siin doono haddii uu naftiisa badbaadinayo.
marka nimanka halkaas ay xaaladooda cala dheer loo ballan qaaday hal dheera ballan qaaday wuxuu leeyahay 3 milyan oo dollar qorqor oo farta ka saari doona haddii aad badbaadiso aniga iyo ciidamadeedana badbaadiso 3 milyan qaado na badbaadi galmudug ahaan iyo reer ahaan iyo hawiye ahaan noo badbaadi marka shabaabku ayaga halkaas marayaba lacagii dudugnaay soo faagayaan si ay nafsadooda ku badbaadsadaan ninka maanta gaari hartoob intuu qaaday shabaabku u geeyay ee naf ama lacag ka raadinayo asaga u taala madaxana waa loo dheereynaa gaarigana shabaab qaadan doona waa la ogaan doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyo waxaa jira odayaal ku shiray magaalada muqdisho oo bayaan soo saaray kuwaasi oo taageero u muujinaya beelaha faqashini iyo dhulbahante ee ku sugan gobolada sool iyo sanaag iyo cayn arrintaasi maxaad u aragtaa odayaashani horta waxay kasoo jeedaan beesha lagu magacaabo faqashini waana dadka deegaanka oo laascano degan ayay kamid yihiin iyo meelaha kale sool iyo sanaag degan ayay kamid yihiin shirka waxay soo dhaweyn 12 qodob ee laga soo saaray laascanood taasoo ay beelaha faqashini iyo nimanka dhulbahanta go'aanka ay ku gaareen aayahooda iyo mustaqbalkoodana uga tashanayaan waxaana soo dhaweeyay nimankan odayaasha iyo duqoytida ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana dhahan guul aad u weyn waaye in aayihiina ka tashataan waa wax wanaagsan anaguna haddaan nahay odayaashii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahanadii beesha faqashini waan soo dhaweynaynaa arrintaasi marka waxay ku sheegeen in Muuse Biixi Cabdi iyo arrimihiisa dhanba laga leexdo go'aan cadna laga qaato meelna lagu soo wada jeesto waa wax wanaagsan in beeluhu ay midoobaan meel horumarna ay sameystaan ay ku sheegeen bayaanka waxayna leeyihiin waa diyaar ayaan u nahay wixii karaankeena nooga baahdana waan ka geysan doonaa haddiina loo baahdo inaan shirka ka qayb galno nagula casuumana waan tegi doonaa waxay sheegeen marka in Muuse Biixi Cabdi maamulkiisa dhaqamada uu ku sameynayo beelaha dhulbahanta iyo faqashini inaysan wax wanaagsan ahayn mar walbana shacabkooda la gumaado oo la laayo taasina aysan socon doonin qofka bini'aadanka rabitaankiisa in la xushmeeyo waa wanaagsan tahay Muuse Biixi Cabdi waa nin midi iyo qoray ka horeyso taasoo doonaya inuu ku laayo shacabka reer sool iyo sanaag iyo cayn ayagu shacabkuna way soo jeesteen wayna fiicantahay in go'aan la qaato go'aan cad ayaana halkaas ay ku gaareen anaguna waan soo dhaweynaynaa leeyihin go'aankaas fargodow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta soomaaliya iyo bariga afrika daawadayaal barnaamijkeennii faaqidaada intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid lamida waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo